السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا من سلام أصحابتي ميل كستو aad joogtaan soo dhawaada channelkeena Umu Axlaam channel. fadlan haddaan ku cusubtahay subscribe saar haddii hore nala joogtay like comment share. asxaabta maanta waa Ramadaan maalinkii saddexaad waa ka maanta suuqa lagu maqnaa qudaaraha la keenay qudaartii iyo afurkii aa karinaya insha Allah aan rabaa inaan idin la wadaago qudaaraan soo adeegtay hadda afuraa karan rabaa xilli afur waa casar waa hadda marka asxaabteyda suuqa ka imaada la socdo wanaagsan qaabka wax u karinayo marka waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago marka asxaabteyda idinkana wax u faa'iideyn qudaarta nafaqada leh maasha Allah cuntada hadaa u dhameyso aa karinayso oo qudaar dhameystiran hadaa aa ku dartid cuntada maasha Allah qofka jirkiisa wax badan ay ka bedelay oo maanta dhan oo soonaa marka maralaala marka oo afurka waxaa wanaagsan in wax oo vitamin ah ka helaysid inaa aan ku afurtid maanta dhan aan gaajisneed maanta dhan ii sheegadi oo energy ka maqnaa qofka oo asagoo sooman uu shaqeeyaa waa ogtahay marka aan sooneynba cunto 3 waqti 4 waqti intaas la cunaa in ka badan iyo biyo badan la cabaa maadaama maalinkii biyadan cabin oo cuntana aadan habeenkii waxaa qurxoon marka afuraysid camal inaa oo waxyaalo oo vitamin ah ka helaysid jirkaaga wax ka faa'iida inaa cuntid marka waxyaaliyo dhan qudaar oo dhan aan soo jabnay insha Allah wax ka maqan ma lahan xalaal wixii qudaar suuq yaalay marka qaarna fridge ku jiraan wixii meeshan ka maqan marka waxaa rabaa afurka inaa idin la wadaago ee qaabka u sameeynayo waxaa rabaa inaan sameeyo soup marka ila daawada asxaabteyda waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak marka kullamaan waxaan tumbi khayr sanadkan sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo corona oo naga dhamaaday oo naga baaba'ay iyo Soomaaliya mid ah maasha Allah ilaahay dambigeena ha dhaafo soonkan ilaahay aan ka rajaynaynaa inuu ilaahay nooga dhigo kii dambigeena lagu dhaafi lahaa kii aan isku cafin lahayn kii aan isku walaalan lahayn hadaa Soomaalinaha insha Allah haddana afurkii aan diyaarinaa marka hadda waxaan diyaarin rabaa soup marka qaabka u diyaarinaa insha Allah isla arkayna waa maraq ama saa u taqaan maraq oo maraq laga cabi karo oo cunto lagu cuni karo insha Allah marka maanta dhan aad daalan tahay waxaa fiican in qudaarta inta karsatid oo dhacaankeeda iyo waxeeda waxaa waa digaagan soo jarjaray waa basal saliid isku saaray waa digaag waxaa hadda ka aan ku shubay marka asxaabta la socdo wanaagsan waxaa hadda ku daray kabsar caleen iyo toon aan ku daraa insha Allah qaabka u karinayo marka qaabka inooga soo bixi doonaan asxaabteeda la socdo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay waxaan filayaa inaa iga faa'iideysan doontaan anna idinka faa'iidi doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku daray waa huruud aan marka waxaan jeclahay cunto oo caafimaad leh inaan ku afuraan jeclahay ama reerkeyga aan ku afursiiyo marka asxaabta la socdo wanaagsan waa qudaar oo waxba aan dhinayn digaagii marka waxaan ka sameynayaa waa maraq la socdo wanaagsan asxaabta kana qudaartii oo dhan video waa jaray qudaartii oo dhan marka aan ku daray insha Allah la socdo wanaagsan qudaartan wax ka maqan ma lahan digaagii iyo basasha marka isku daray qudaartii yaa ku daray haddana ayadoo is wadato digaagii waa ka soo ka muuqda marka ayadoo dhan qudaartii oo karoot ku jiro oo mushroom ku jiro oo digirta cagaaran ku jirto oo karoot basal toon kabsar caleen wax ka maqan qudaar ma lahan oo ujeedin oo qudaar oo ka muuqdo maraqii laga sameeyo marka oo aad dareemi kartaa caraftiisa iyo macaankiisa marka qudaarta dhacaanka soo dhasho ii sheegay maraqii dhalay qudaartaana dhan la isku geeyay maasha Allah aadayna u caraf badan tahay cuntada maraqan waana la cabi karaa qaadinta gistida cabi kartaa waxaa ku samaysan kartaa mala waxaa ku cuni kartaa ya
ceeshaa ku cuni kartaa. marka waa yar qudaarta ceyriin waaye hilibkaas soo kari waa isku soo dardaray waa ka soo dejiyay hoosaa gelinaa wax yar marka intaa waxay kale aan ka diyaarsanahay wax yar asaga la iska hooro dabka wax weyn ma ugu dhigaayo marka inuu iga qabo waa diida oo wax yar ii sheegay cuntadana biseel ma ahayn wax yar soo bislaato waa kasaa inta asxaabta la socod wanaagsan asxaabteeda marka mala waxaa lagu cuni doonaa insha allah mala waxayna waa kasaa mala waxaa lagu cunaa oo jeedin qaabka noogu soo baxay waxaan idin leeyahay afur wanaagsan afurkeen soo diyaarsanay afurkeena waa intaas qudaartaas aan samaysanay iyo fruutiskan iyo waxaa waaye malawax marka waa ujeedaa qudaar oo dhan isku soo dardaray fruutis oo dhan isku soo dardaray wax ka maqan malaha ujeedaa fitamiinaad badanaa laga helaa soonka markaa soomantahay timirta energy ku siinaysa sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu daa'imi jiray oo jeclaa oo noo dardaarmay inaan 3 xabo oo timira marka afureen aan ku afurno waxay ka taraysaa jirkaaga wax badan energy ku siinaysaa marka asxaabay la socdo waa kasaa afurkii aan diyaarsanay ani familkeyga waa intaas qaabka u sameeyay waxaa ku daray jecleystay inaan idin la wadaago waan idin la wadaagay asxaabteeda soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan waa kasaa suubugii waa soo bixi ay la kariseen iyo malawaxii lagu cuni lahaa iyo fruutiskii marka biyo fast marka timirta cuntida biyaha cabtid ma fiicno cunto inaan hore ka cuntid marka ani fruutiskaas cunnaa oo salaadii la soo tukadaa markaas loo soo laabtaa wax alaala wixii la cunaayo marka biyo cabti timirtii cuntido oo biyo cabtid waxaa fiican fruutiska inaa cuntid shaah iyo qaxwo hadda dib ku jiraan hadii kalena koob qaxwo iska cabsid marka jirkaaga marka maalinkii dhan ma dareemaysid daal iyo jajab iyo soonka markuu dhamaado waxaa lagu leeyahay waana sooneeda adoo qurux badan ugu soo baxday soonka maasha allah marka asxaabta waan idin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay bye bye